daawade ku soo dhawow channelkeena Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambaleel kala furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة ونكسر صاحب بيال ميل كستوى الدنيا كشوكتان كسر هذا ما أنت يورك وين عياره channel كينا وحن سوق هذا دونا ورك قدام بيا ما أنت عيارها داعية يولي بقى سوقك وبدأ كوحدة أرسنال أو عيارتو مهمة قرك وسارن أشليان أو تجاوز عفوا مرة يا كوحدة وبدأ عكتا إنتر ميلان يولي وحن سوق هذا دونا رونالدينيو يا مالين كيسي سيدو كلا وحنو إيجي دونا وبرشلون عيارتو بدل كل نقطة سواريز هالكيبي كهشي sidoo kale xaaladda laacibka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Pulisic oo bariyuhu dhaawacna war laga helay iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa maanta Bruno Fernandes Manchester baa xalku adkeynaysa mooyaane oo lacagta isku dhajinaysa mooyaane bal warban maanta ka siinay arkaa iyo war kale muhiim ah oo ciyaaraha ku saabsan inuu soo qaadan doonaa warada saaxiib channelka cusubta noo subscribe garaysiya hawsha waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha jimco wanaagsan baardilee asxaabay jimco wanaagsan meel kasta waa dunida ka joogtaan waa maalinkii la iska madax dagsan jiray hey wal ilaahay ma taqaana xalka inoo toosiyo oo xalka ilaahay ha noo hagaajiyo jimco wanaagsan baan leeyahay asxaabta bal warkii baan u eegi doonaa maanta bariyahan waa la caajis baan maleynayaa League Cup baan idinku wareeriyay FA Cup baan idinku wareeriyay Coppa Italia baan idinku wareeriyay oo kayba Premier League is back iyo ciyaari horyaalada dhanba waa soo laabanayaan iyo Spanish markaa baa lidinku boojiyay bariyaha waa wada caajisteen bal ciyaari horyaaladu baa soo laabanaya oo miyaan ku xasuusiya maxaa dhici doona maalinta bariya aan ku xasuusiya bari ciyaar xiisa badan baa jiri doona horyaalko bari wal Arsenal iyo Arsenal Sheffield bay la ciyaaraysaa saddex ciyaarood buu Aubameyang maqnaan doona miyuu Martinelli dhalin kara gool la'aanta Aubameyang marka bari ciyaaraha jiri doona Arsenal iyo Sheffield baa kamid noqon doonta bari Arsenal waa lixda maqrib bay ciyaari doonta Tottenham isla xilli waxay ciyaari saddexda iyo barka galabnimo waa ciyaarta lagu furi doono iyaga iyo Watford halka Chelsea iyo Newcastle iyagu habeen dambe ciyaari doonaan saacadu marka ay tahay 8 iyo barka habeenimo Manchester City iyo waxa ciyaariya Crystal Palace oo 6 maqribmo iyo habeen dambe jiri doontayo war kuwi madax adka Man City ay armay idin lugooyan Crystal Palace inta badan way lugooysaa ma ogtahay City jidka bay u galaan marka habeen dambe ciyaaraha ka jiri doona Ingiriiska ciyaarihiisa Spain-ka kale waa la riyaaleynaya oo waa la adlikeynaya iyo barshahad wayaan Real Madrid oo kale Sevilla bay la ciyaari doontaa habeen dambe 6 maqribmo waana ciyaar aad u adag Atletico Eibar inuu waa 12 habeenimo habeen dambe balse Barcelona waa iyana waxado marka xataa Manchester United iyo Liverpool waa iyana waxada ciyaaruhu marka waa kasaabay noqon doonaan iyo qaar kamid ah ciyaaraha Talyaaniga sida Milan iyo Juve iyo Inter iyo Tutina waa hadda marka waa ka waxay ahaayeen xoga yar baan iska yara qac ka siinayno bari si aad gambarkaaga u sii diyaarsato yaa si aad kooxdaad u daawato bay haydo bal maxaa maanta cusub ciyaaraha ku saabsan wararka ugu dambeeya ciyaaraha waxay leeyihiin Ashliyan wuxuu qarka u saaray inuu noqdo ciyaartooy kooxda ka tirsan Inter Milan waxaan wararku sheegayaan heshiis la gaaray wariyaasha ka soo hadla Talyaaniga sida Romano waxa uu leeyahay heshiis baa la gaaray hatta wararku waxay inta ku darayaan in Ashliyan uu tijaawad caafimaad maraya kooxda kubadda cagta Inter isla maanta حتى وركو حتى كدريان ينا إن أشليان أو توبركي مانشستر كبحي كنا قصبة يا كحدة إن أي إبس إلا بالله عياري قدام بي أشليان وما عيارين كحدة كبدا عكتا إنت مانشستر يونايتد وحنو عيارتوجو تصوبوا هيدنا عيارين ما دام الحرنين وكحدة كبحوا مرك إنتر مانشستر بريو ريان ما بجعلين لك مرك وبحا اللي قالوا نيكي لما عادبة ويسكون رجينيان يان وحولي وان بحيا وكحدة حقوق قصبة يا إني إبيان تلين ورك صباح وحيلي مرك أشليان waxuu noqonayaa ciyaartooy Inter waliba tijaawad caafimaad maanta oo jimcaha la filayaa inuu maro markayaan inuu Interooba laga yaabayo ninkii Anthony Conte ahaa ciyaartooyga Ingiriiska ciyaari dhan buu daldalanaya wixii Premier League laga nacay ayuu haga isugu geysanayaa si uu Juventus uga dagaalo ciyaaraha ku guuleysiga Talyaaniga ee sanadkan marka ninka yaan la yiraahdo warkiis waa gabagabo tijaabo caafimaad maraya leeyahay kooxda kubadda cagta ee Nerazzurri waxa kale oo miisan ciyaaraha Arsenal wali waxay aad u baadi goobaysaa lagu leeyahay ciyaartooyga Kursawa oo ah nin dambeedka bidix ka ciyaaro Lyon kamida maadaama cunugii Tierney ahaa la soo gaday dhaawaclo uu iska noqday yaa haddaba Arsenal ninka la yiraahdo biishi dambeedka mid ugu ciyaara Livin Kursawa ay aad u xiiseynaysaa waxaana laga yaabaa Arsenal in ciyaartooy ku qaadato free transfer ku qaadato laga yaabo yaani in beeca horta ciyaartooyga ay ku qaadato suurtagal ah marka Arsenal way Kursaweynaysaa ninka bay Kursawaha bay doonaysaa
Arsenal moogtaa meelay ka dhimatay waxaa kamid ah dambeedka midig iyo waxay ka dhimatay moogtaa dambeedka bidix bay ka dhimatay labada dhinac waa ka dhimatay dambeedka midig ninkii loogu talagalay Bellerin waa dhaawac lawa waa maqan yahay sagaashan waa maqan yahay dhaawac dilay booskiisa mid kale caasi waalidiin baa joogo kii muxuu ahaa Niles baa jooga waa nin caasiya hooyadii ka inkaarsaday weeyaan ma nin hooyadii ka inkaarsadaa noolaana maanta waa jabaale isagna dhaawac la kala weeyaan kaasna waa iska jooga dambeedka midig buu ciyaaraa dambeedkaas bidix ninkii Saciid Kolisaric baa jooga xoog weyni baa jooga xoogan wax tareen weeyaan mararka qaar waa laga boos ka hesho gool ku caawi laakiin ma badna canugii laacibka la soo gadtirna waa dhaawacay marka saas daraadii Arsenal kursaw bay daba ordayaan 2 sano ka hor toddobaad maanta oo kale ama toddobaadkan oo kale Ronaldinho ayaa ciyaaru ka fariistay ninkan wax badan kama hadli karno kan wuxuu ahaa kabiir mucaarad iyo muxaafad haddaad weydiiso tiraado Ronaldinho ka waran cimad halkaas ka dhigayaan cimaamada halkaas bas ka dhigay waxa jira ciyaartooy mucaarad way jiri karaan laakiin asagu mucaarad iyo muxaafad ma lahayn magic buu ahaa saaxir ah kabiir buu ahaa banoniga la hadli gaaray banoniga soo tafiirinay farmiyeed wala miya adoogiis waa farmiyeed idin wala oo indhaha iska inta fiirin inta ka dhan la goolka abis ninkan kana dhalay ninkan ayaa hawsha soo shiisayay ninkaas iyadoo inta loo jeedo xaga banoni laga baasa banoni iyadoo la iska niikinaya dhan la goolka wixii la rabo laga sameeyay banoni ka waliba ninkaas wuxuu ku dhawaaday banoniga in uu la hadlo ayuu ku dhawaaday macna waa duqo mooyaane wuxuu noqon lahaa wuxuu ku dhawaaday ninkan baalkaas la aariyay shayga awalax ee aan hadli karin inuu ka hadlisiibu gaari ninka banoniga sidoo ugu baashaar ninka ka ugu raaxaysan jiray banoniga halka maray xagga laga qabanaya iyadoo inta la fiirinay inta laga dhalanayo kubadda iyadoo xagga loo jeedo inta laga baasaya kubadda sidii la rabo ayuu kubaddu ka yeelay wuxuu ku dhawaaday in kubaddu hadlo kubaddu yiraahdo waar kubaday inay tiraadina kaale halkaan ugu mow inuu sida kubadda u amra ayuu ku dhawaaday ninka wuxuu ahaa legend weyno waa ninka ku guuleystay Ballon d'Or koobka adduunka Copa America Champions League Copa Libertadores Serie A iyo La Liga buu ahaa waa nin dhaafay nin yaala oo yaani wax kala waxa kale uu misan inuu ciyaaraha maanta Rashford war fiican baa u soo baxay Manchester United waxa la leeyahay Rashford wuu ciyaari karaa kulanka derbiga u dhaxeeya Liverpool iyo Manchester United muhiim ayuu yahay Rashford bariyo ilma aha laakiin hadda waa weynada Rashford cimaamad couture buu yahay Rashford oo bariyahan waniga 19 gool dhalay weeyaan waliba kulankii hore ka dhacay Old Trafford wuxuu ahaa ninka dhibay buu kuwan kan ahaa Liverpool ninka dhibay buu ahaa Van Dijk buu jirku kala tuura xataa cunug ma adiga cunuga Ronaldo qaba odagu iska dhigaa Ronaldo ya cunugan Van Dijk baa lagu kala bixiyay jirka marka xogaa ku dhacay marka ninkan oo dhaawac ka soo gaaray ciyaarta Wolves shaki weyn baa laga qabay laakiin waxa leeyahay waxay u badan tahay inuu ciyaari karo ciyaartooy karo daawooyinkii ciyaartooyga la siiyay si fiican bay jirkiis u qaadatay waxay u badan tahay inuu ciyaartooygu ciyaari karo baa leeyahay marka war u fiican Manchester United inuu Rashford kulanka ka ciyaaro waliba kulankii hore qaladkii dhacay waxay Rashford buu tababaruhu bedelay mooyaan Rashford wuxuu ahaa ninka culayska saaray difaacida Manchester cunug ma hada cunug ka weyn waa maanta waa lagu mashquulaya wax laga qaban karo maanta soo degdeg leeyahay marka Rashford waxay la leeyahay uu ciyaari kara kulanka hadda derbiga labada kooxood weyn u dhaxeeya ogoona Manchester ayaa ahayd kooxda jibisay labadii record unbeaten ugu dheera Premier League taariikhda kii Arsenal 49 kulan iyo kii Chelsea 40 kulan iyaga baa jibiyay haddana waxay doonayaan recordka saddexaad unbeaten ugu dheera Premier League iyagu jibiyaan Manchester bay ku tahay way jeceshahay unbeaten jibiso وجعلنا كلنا وجعلنا نجيبنا بيتك هاي كلهن لا الفولبرا وكاديو يعني كل عيميا اروح اللي كما قبطان كيو يا مانشستر ديركت هاي وش هاو سيس ليفربول ونيل هاو علي سلابو هاي محادا يا بدا هاو سدحيسو ليفربول بلا شيغين يا بيتك يدو لكن يا مانشستر يا لبا كدلي كره ليفربول اما صدح جول كدلي كره قاعده كلي لوو غراعي كره كوخدا waxay tahay يا مدح فداد قبا او جول كدلي كره كوان كو لبا كدلي كره laba xataa ka dhali macquul waa saddexdaad geey kartay ciidamada ku tuur weyn waayaan nimankaas waxa garaaci karnin goolasho farinaya bariyahan wax goolasho fardhi baa la lahaynba laakiin wararku waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta Liverpool taageerayaashu waxay diyaarsanayaan bal leeyahay waxay diyaarinayaan soo dhaweyn colaadad bay u diyaarinayaan bal kooxda Manchester United oo basaskoodii bay soo baxsanayaan dab weyn ay shidayaan bal leeyahay jabi colaadeed weyn bay shidi doonaan bal leeyahay markay Manchester ciyaartoygooda imaanayeen taageerayaashooda imaanayaan axadda Anfield taageerayaasha Manchester Liverpool waxay u diyaarsanayaan bal leeyahay diyaar garow weyn bay ku jiraan bal leeyahay oo soo dhaweyn colaadeed bay diyaarin doonaan haddaan bal la isku dhicinba oo dagaal weyn meesha ka dhicin Liverpool taageerayaashu waxay diyaar u yihiin inay buuq iyo qiic ku shidaan kooxda kubadda cagta Manchester taageerayaashu marka ay imaanayaan
basaskoodii weyn bay diyaarsadeen baa lagu leeyahay reer liverpool ilaahay baa khayli iyo buuq u dhiimo ogtahay waa reer sawaxan baa layidhahda iyo waxay abuurayaan jabi colaadeed weyn bay abuuraan waxaa kaloo waa laba koox isnacab iyo taageerayaashooda weeyaanu dhan kale Chelsea ayaa heshiis la gaartay ciyaartoygooda lagu magacaabo Reece James waxaana ka siixeen 5 sano ilaa 2025 ayuu kooxdan u joogayaa heshiis fiicanna waa la siibaa leeyahay dhan kale waxa uu miisan ciyaaraha iyo maanta tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee loolayda ahaa City ninka la yiraahdo waxa uu rabaa inuu macnuhu loolay marka kule waxay tahay maalmood wuxuu yiri anigoo loodeeda iska raacaya ay Barcelona tababariga dhigteen buu leeyahay shan loodeeda ma raacay uu leeyahay maantana ciyaartooyga dunida ugu fiican Barcelona tababaro waay buu leeyahay shahaado ma haysto wali ka fiican ma qaadin shahaado yani CV weyn ma haysto marka ninkan si uu waqtigii mustaqbalkiisa Barca u badbaadiyo wuxuu ku qasbaya inuu leeyahay xilli ciyaareedkan waajibna ku ah in la liigu qaado marka macalinku wuxuu maan ku hayaa inuu leeyahay inay muhiim u tahay sanad ciyaareedkan inuu liigu guuleysto maadaama hadda kooxdiisa Barca iyo Madrid iyagu ay kood ku wada jiraan marka tababaran waxa qasab ku ah inuu leeyahay inuu sanadkan Barca u qaado ciyaaraha La Liga Champions League am warkiisa la sheegi kari kaas oo awayaan baab kala waa baab kabiir ku noqday Barcelona kuwa orod ayaan taanba uma fududa laakiin La Liga ciidamad bay u taabal leeyahay macalinka cusub dhan kale West Ham wali kamaan horin baa lagu leeyahay Ross Barkley inkastoo Chelsea usoo diiday ciyaartooyga inay ninka ciyaartooyga inkastoo u diiday in uu ku biro kooxda kubadda cagta ee West Ham waa loo soo diiday dalabkii ugu horeeyay Chelsea u dirtay balse wali kamaan horin baa leeyahay ciyaartooygu dib ay u doonaan arrimaha Bruno Fernandes kuwii Bruno ku dhacayo horta Bruno arkiisa Manchester baa isku haysa Manchester oo kooxda saddexaad adduunka ugu taajirsan ayaa waxay dhiibi laadahay lacag yar waxay ku darlaadahay heshiiska oo ah ilaa iyo 10 iyo 3 milyan bay ku darlaadahay labada koox waxa u dhaxeeyo leeyahay farqi lacageed oo ah 13 milyan baa u dhaxeeyo leeyahay heshiisku maanta waxa laga soo warinayaa oo warbaahinta Portugal ay soo warinaysaa in heshiiska wali aan la gaarin yacni dhanka dhaqaalaha labada dhinac ay ku kala aragti duwan yihiin kooxda kubadda cagta Lisbon waxay doonaysaa inay ku qaadato inay ku ciyaartooyga ku fasaxdo lacago dhan ka 5 milyan bay doonayaan halka Manchester ay diyaar u tahay 42 milyan waxa u dhaxaysa leeyahay labada dhinac 13 milyan iyagoo Manchester United ah wariya sanadkii hore ninka lacagtan la qajaclay heshiiska u burburay sanadkii hore Manchester way qaadi kartay laakiin lacagaha heshiiska la isku burway wariya idinka Manchester baad 5 milyan dhax ka taagaysan ka war wariya Van Dijk 8 lagu qaadanayo Serting Maguire waxaad ka bixisay 8 ka bixiseen markaas Bruno lacag oo 15 gool liyo xilli ciyaareedkana sanadka hore 2 gool laliye 2 gool ah ayaad dhinaca ka tagtaagaysan idinka waa koox saddexaad ugu taajirsan bad dhinaca ka tagtaagaysan 5 milyan wariska fariya lacagtan maxay tahay wax lagu leeyahay wali heshiiska lama gaarin sababtoo ah dhanka dhaqaalaha ayaa la isku hayaa oo Manchester waxay taagan tahay anagu waxaan diyaar u nahay 42 milyan halka Lisbon ay leedahay anaga 5 milyan hal kumi kama dhibaynay leeday ay leey kod shimil ban ciyaartooy ku doonayna 13 milyan baa u dhaxaysa uu leeyahay warka ugu dambeeyay Portugal waxa ka soo baxay marka waxay leeyihiin Manchester iyo Lisbon wali waa isku dhagiino heshiisku wali ku kala kacid buu ku dhawaanaya hadii ayna Manchester 13 milyan ku darin baa uu leeyahay aridu duuda wariya kaliya madax ka dhigay jiray war lacagta iska fardhi arkana ka Manchester waa waalay wariya idinka waa kooxda saddexaad ugu taajirsan adduunka ahna kooxda koowaad ugu taajirsan Premier League waqtigan ayaad indhaha ka tagtaagaysaa 13 milyan wariya Liverpool wadarta sanadka u shaqeynaysa ciyaartooyga Alisson 900 agteeda laga soo bixiyay lacag kii kale muxuu ah Van Dijk ba 800 agteeda lacag laga soo bixiyay markaas indhaha ka tagtaagaysaa 13 milyan marka arinka Bruno Fernandes iyo Manchester iyo Lisbon wali heshiis lama gaarin dhanka lacagaha heshiis lagama gaarin baa lagu leeyahay oo ciyaartooygu hadii 13 milyan ay Manchester ku darto way u badnaan doontaa inay ku dari doonto markaan Manchester ninkan ka baxsado Manchester shalay weyn bay wiliga shalay doontaa marka warka ugu dambeeyay Bruno aan ka leeyahay maanta waxay tahay taqaana dhanka lacagaha ayaa la isku mari leeyahay oo 13 milyan farqi u dhaxaysa labada dhinac waxa kale ugu misan ciyaaraha iyo maanta iyo suuq qaliisugu ciyaartooyga dhaawicii Pulisic markii hore sida loo maleynayay in ka fiican buu hadda yahay yacni qatar dhaawiciisu aad baa risk weyn loo muujinayay inaanu in badan maqnaan karay baa loo maleynayay marka sidii loo maleyn dhaawiciisu inuu gaari karo uu ka soo fiicnaanaya buu leeyahay inuu garoomada ku soo hordhaqsado baa laga yaabaa ciyaartooygu ayaana laga yaabaa in waqti dhow Chelsea garoomada ugu soo laabto kadib markii uu dhaawac soo gaaray waxaana inuu ciyaaro ugu dambeysay ninkan tan iyo maalinta sanadka cusub ee bisha haddaan ku guda jirnay January marka ninkan dhaawiciisu ma adka baa leeyahay inuu soo laabto suurtagal weyna dhan kale Mane ayaa waxa ciidamada ku tuuraya bariyaan loo ciyaarto Messi ku soo tuuray Vieira baa ku tuuray ciyaartooyga kubadda cagta waxay lahayn sanadkan Mane wuxuu qalmin la siiyay Ballon d'Or bedelkeedina waxa la siiyay xidig sanadka ugu fiican Afrika hadaba laacibka hore Premier ku ciyaari jiray ee lagu magacaabo Bobby Cisse ayaa sheegay in laacibka Liverpool Sadio Mane uu noqon doono mar uu nin la siiyo abaalmarinta Ballon d'Or uu noqon doono ciyaartooyga dunida ugu fiican wariyaha horta bariyaan misleedin Mohamed Salah
waxa ka saameyn badan maane misleedin baryahan waa laga saameyn badan yahay inkastoo dadka Liverpool ka taageera ay Saalix u qabaan Saalix odayga Saalix ka doorbidaan mugtahay marka labada laacib ay wada ciyaarayaan mid bad si horjeceshay mugtahay ayaga Saalix inkastoo qaban bal leeyahay sanadkan indhaha iskama tiri kartiin oo kiyaalo indhaha ku jiro iska saara sanadkan waxa ka saameyn badan Saalix maane waa ninka gilgilay kubadda cagta sanadkan ilaa maxaa bal door loo sii weeyaan يا أو محمد صلاح قرمال يروليجز محبل دور كله سيواي ما ولا دهين بقى لكن ما نو حلقود دقالة محبل دور كله سيواي هذا هو كمال داري قال لنا الميسي ماجيك أيوة وحول الله إنه كمان مثلا لا سيء جدا ولي مو ما نقلين بقول أفراد اللي جايو هذا نسيسي وحول الله ونقدنا كان دوني دوقف عن مركب بريهان صلاح واه سيا سامته قبض إني كان باحيستا نكرنا وحقوق مثلا إنه عيارها إيو ما أنت رونالدينيو وحول الله هاي أنا يقول ميسي وحبيك جنب باحنين isaga ayaa wax haystay buu leeyahay dadku qaar waxay qabaan in Messi uu soo saarin karo Ronaldinho wuxuu ku leeyahay anigu Messi markii as arkeen waxba igama baahneen macna Messi saa magic oo saaxir ah oo kubadiis wata uu leeyahay anigu wax uu igaga baahnaa Messi manu jirin buu leeyahay oo igama baahneen wax walba asaga wax walba haystay buu leeyahay Ronaldinho ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu Messi ka caawiyo goolkiisii ugu horeeyay ee uu dhaliyay kooxda kubadda cagta Barcelona markan imaanay Barcelona buu leeyahay ayaanba markii ninkan nin saameyn lahaa Messi waxaan ku sheegay kulaha markaan anigu Barca ku soo biiray kulaha Ronaldinho baa dhahaya waxaan ba aad u maqlay uu leeyahay wiil yiraahdo Messi warkiis waa maqlay kulaha marka imaanay wiil yiraahdo Messi mucjisa ayaa kooxda Barca biyo u ciyaara warkiisa markaas ay maqlay uu leeyahay ninkaas saab nin saameyn badna aha uu leeyahay anu wax kama dhigin asaa wax kala aha uu leeyahay ninka marka imaanayba hadalkiis waa iga soo horeey uu leeyahay waxaan hin dad saaxiiba oo wada ciyaara Frank Rijkaard baan ka codsan inuu tababarka kood lagu soo diray ninka kan runtiina waxaan nasiib ku lahaa buu leeyahay ninkan goolka ugu horeeyay aan ka caawiyo aad baan isugu dhaweynoo Isbaanishka buu i bari jiray Portugiiska baan bari jiray Leo wax walba ayuu haystay waxba igaga baahnay aniga buu leeyahay Ronaldinho ka asaba magic ah buu leeyahay waxyaabo kale ugu miisan inuu ciyaaro waxa maanta kamid ah kooxda kubadda cagta Inter Milan shalay waxa soo baxay in directorka Inter Milan uu soo gaaray ninka la Pepe Morata uu soo gaaray England waxaanay u badan tahay dhowr ciyaartoy sida Giroud Erikson iyo Jan Arkood inuu dhameeyo wabata hadayaan galay waa dhow yahay hadda warku waxay leeyihiin xataa shalay waxa la arkayay in directorka kooxda kubadda cagta Inter Milan uu la fariistay wakiilka ciyaartooyga Erikson waxaana la arkayay iyagoo ku wada shiraya England gudaha Ingiriiska maalintii shalay Khamiista haydo taasna waxay ka dhigan tahay in arika ciyaartooyga Erikson Inter ay gabagabayn rabto kooxda ugu qaalisan kooxda ugu taajirsan dunida ee Barcelona malud markii qiimeyn la soo saaray hadda waxa noqotay kooxda ugu taajirsan dunida Real Barcelona baa noqotay Real Madrid waa laga wareegay hadaba kooxda ugu taajirsan dunida ee Barcelona ayaan isku hooleyn bal leeyahay bedelka Suarez inay hesho iyadoo ognahay Suarez inuu garoonka ku maqnaan doono muddo 4 bilood waxa la leeyahay macalinka cusub bedelkiisa ma raadin doono bal leeyahay ciyaartooyga kano wuxuu ku noqon doonaa bal leeyahay xirada Barcelona buu ku laaban doonaa iyo ciyaartooyga Barcelona B ayuu ciyaartooy ka raadsan doonaa bal leeyahay waxaana Suarez uu rabaa inuu ku bedelo bal leeyahay labada ciyaartooy ee u ciyaara kooxda Barcelona B ee Abel Ruiz iyo ciyaartooyga lagu magacaabo Alejandro Marquez ragaabuu ku bedeli karaa lagu leeyahay Abel Ruiz ayaa ninka koowaad ee booska in lagu bedelay tahay waana wiil hadda 19 jir oo 20 jir noqonaya 8 January marka labada nin bay ku bedelanay lagu leeyahay marka Barcelona hawl badan iskama saaraysa lagu leeyahay in ninka kanu bedelkiisa rasmiga hesho Suarez waxaanu tababaru doonay lagu leeyahay wariyahanada hadda ay haystaan iyo waliba kuwa hadda Barcelona ka soo qaadanayo marka kooxda ugu taajirsan dunidu wax ma doonaysan in lacag fardhiso oo Suarez bedelkiisa ay soo qaadato ma doonayso waxay rabaan hadhow inay indhaha taagtaagaan marka la gaaro astaan jamlig markay soo yeerto habeenkaas kaadi oo kugu dhaco marka indhaha taagtaag habeenkaas aan oile ku jiro maalin kasta micna adoo Barcelona ah hadda inad bedelka Suarez doonato marba adoo adduunka kooxda ugu taajirsan ah ugu dhaqaalaha badan ah inaad ciyaartooy aad ku sii basraysan aad soo qaadid marba ilmayris inaad ku wareegtaa rabtaa ma okayba marka waa ka wuli oo hankii maalud Barcelona ka dhaliyana ciyaarta bareejo ka dhigan waxa leeyahay wuxuu ku guuleystay Ballon d'Or-ka Shiinaha yani wuxuu noqday xidiga sanadka ugu fiican ee Shiinaha wana sanadkii labaad oo xiriir baa leeyahay oo ninkan abaalmarinta la siiriyo halka Turmeelo uu dib ugu soo laabtay tababarka kooxda kubadda cagta Barcelona waxaanu ciyaari karaa uu leeyahay kulanka Granada ciyaarihii maanta waa naga inta aqyaari jimco wanaagsan